asxaabta youtube-ka ee ku xirana si qaasaan idiin salaamayaa dadka cusub ee nagu soo biirayana waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada channelka waa channel assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed meel kastaad joogtaan aad baan idiin salaamayaa intii bogta allaha caafiyo intii dhimatayna allaha u naxariisto intii noolna ilaahay cimrigaha u siyaadiyo kusoo dhawow kanalka afiifa warsame haddaad kanalka ku cusub tahay subscribe saar haddaa muuqaalkan ka heshay like saar hana ilaabin inaad asxaabtaada lasii sheer garayso maanta waxaan rabaa inaan inla wadaago waxyaabihii aan kasoo bartay buug aan aqriyay buugga waxaa la yidhaahdaa how to win friends and influence people buuggaas waa buug weyn waxaa laga yaabaa 200 iyo dhowr page inuu ka kooban yahay qof walba inay aqrida way fiicnaan lahayd qof walba inay aqridana waan kula talin lahaa waa buug aad u qurux badan waxaa qoran nin la yiraahdo Dale Carnegie sanadku markuu ahay 1936 waxaa laga yaabaa buuggaas in laga sameeyay yacni 30 milyan amaba ka badan oo koobi waa buug ka mid ah buugaga loogu iibsiga badan yahay adduunka xaqiiqda asxaab badana soo codsatay buuggan oo tiraahday buugga wuxuu ka kooban yahay kasoo hadal buugga wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood qaybta koowaad waxay ka hadle farsamooyinka amaba qaababka aasaasiga ah ee dadka loola dhaqmo siyaabaha ugu wanaagsan ee dadka loola dhaqmo qaybta labaadna waxay ka hadle siyaabaha dadka aad isku jeclaysiin karto oo qof bini'aadana aad u kasban karto qaybta saddexaadna waxay ka hadle sida aad dadka fikirkaaga uga dhaadhicin karto qaybta ugu dambeyda afaraadna waxa ay ka hadlaysaa sida aad hogaamiye u noqon karto adoon rabshad kicin adoon ma aragtay problem kicin adoon qofna dambi ka galin soo buug afartaas qayb uu ka kooban yahay isku day inaad fiirsato muuqaalkan bilowga ilaa dhammaadka waxaan rajaynayaa dad muuqaalkan si wanaagsan aad u dhagaysato inay la mid noqon doonto adoo buuggaas aqriyay waana kugu dhiirigelinayaa buuggaas inaad akhriso waana kugula talinayaa soo ila soco haddaba cutubka koowaad wuxuu ku saabsan yahay qaabka ugu wanaagsan amaba farsamooyinka aasaasiga ah ee dadka bini'aadanka ah loola dhaqmo cutubka koowaad wuxuu nafarayaa 3 mabda oo muhiim ah mabda'a koowaad wuxuu yahay in aanan qofna dhaleelin qofna aanan eedayn yacni aan fahamno dadka sababta waxaan ay u sameynayaan iyo waxa ku kalifay intaan eeday lahayn mabda'a labaad ee cutubkaas koowaad wuxuu yahay in aan siino dadka qadarin wanaagsan iyo qirid yacni waa inaan u qirnaa dadka waxyaabaha ay aga duwan yihiin dadka kale iyo waxyaabaha ay uga fiican yihiin waa inaan qofka u sheegnaa meelaha ay ku wanaagsan tahay mabda'a saddexaad ayaa wuxuu yahay waa in aan fahamnaa waxa dadka kale ay jecel yihiin waxa anagu aan rabno iyo waxa dadka kale ay rabaanne waa inaan kala saarnaa oo waxa dadka kale ay rabaan aan ka hormarino waxa aan anagu rabno waa in mar walba danta guud aan ka fikirno oo dadka kale waxa ay jecel yihiin waa inaan sameynaa oo aan ka fikirnaa ka hor nafteena intaanan ka fikirin cutubka labaad wuxuu ku saabsan yahay 6 waxyaabood oo aan ku kasban karno dadka oo dadka aan isku jeclaysiin karno midda koowaad oo aad dadka isku jeclaysiin kartaa waxay tahay inaad qofka bini'aadanka u muujisid tixgelin dhab ah inaad tustid oo u muujisid tixgelin dhab ah haddaad dadka u muujisid tixgelin dhab ah oo aad u muujiso meel walba waa lagaa soo dhawaynayaa midda labaad oo aad dadka isku jeclaysiin kartaa waxay tahay inaad mar walba dhoola cadaysaa dhoola cadayntu waa wax aad u muhiim ah wax qarash ah kaagama fadhiso haddaad maanta dhoola cadaysana faqiir noqon maysid laakiin qofkaad u dhoola cadaysay wax badan ayay u taree fikirkiisana waxbay ka bedelee so dhoola cadayntu waa waxa labaad ee aan qofka bini'aadanka ah amaba dadka aan kusoo jiidan karnaa midda saddexaad oo aan dadka kusoo jiidan karna ayaa waxay tahay magaca dad yooga inaan ugu yeerno yacni qof walba magaceeda inaan ugu yeerno qof kasta magaceedu aad ayuu muhiim ugu yahay luuqad walba ha noqotee so waa inaan dadka magacooda ugu yeernaa midda afaraad in aan dadka dhagaysanaa oo aan noqonaa dhagaystayaal run ah dhagaystayaal dhab ah dadkana aan ku dhiirigelinaa in ay fikirkooda dhiibtaan taasina waa qodobka afaraad ee dadka aan isku jeclaysiin karno haddaba qodobka shanaad ee aan dadka isku jeclaysiin karno ka hadal waxa qofka aad la hadlayso uu jecel yahay
ama qalbigiisa farxad gelinaya. Maalin walba waxaan ka hadalnaa waxa annaga aan jecelnahay iyo waxa qalbigeena farxad geliya. So haddaad rabto inaad qof kasbato waa inaad ka hadashaa qofkan waxa uu jecel yahay iyo qofkan waxa qalbigiisa farxad geliya. Midda lixaad ayaa waxay tahay inaad qofka bilaadanka dareensiisid waxa uu ka hadlayo inay wax muhiima yihiin, fikradihiisuna inay wax wanaagsan yihiin. Halahaas waxaan naga soo gudubnay cutubka labaad oo ahaa sida dadka aan isku jeclaysiin karno. Cutubka saddexaad waa sida aan dadka uga dhaadhici karno fikradaheena. Waa laga yaabaa annaga dhan inay nagu adag tahay si fikradaheena aan u gadno amaba fikirkeena aan uga dhaadhicino dadka. Haddaba buugga Saaxiibo Kasbo ama How to Win Friends and Influence People wuxuu noo sheegayaa qaabab ugu wanaagsan ee dadka fikirkeena aan uga dhaadhici karno. Midda koowaad oo dadka bilaadanka fikirkeena aan uga dhaadhici karnaa waxay tahay inaan ka fogaano dooda. Dooda iyo muranka waxba ma keenayso, fikirna qof loogama dhaadhiciyo, dagaal ay abuurtaa. So mar walba haddaad rabto inaad fikirkaada gadid, ha doodin, hana murmin, ka fogow doodaha. Lambar 2, ixtiraam fikirka dadyowga kale. Sidoo kale qofna ha ku dhihin waa qaldan tahay. Lambar 3, haddaad qaldantid si degdeg ah u qiro qaladkaaga, una sheeg dadka inaad ka xun tahay qaladka aad gashay. Lambar 4, ka fogow ad adayga iyo qalafsanaanta, yacni wax kasta ku bilow si saaxiibtinimo ah. Haddaad rabto inaad qof wax weydiisatid amaba qof uu qalad kaa galo, horay ha uga qeylin qofkaas, laakiin si saaxiibtinimo ah oo degan oo xasilan qofkaas ula hadal, wax walbo way wanaagsanaan doona. Si degan oo xasilan qofkaas ula hadal adoon booqin. Midda 5, mar walba isku day dadka inaad weydiisid su'aal ay jawaabteedu haa tahay, si dadku ay u dareemaan in aad fikir weydiisatay amaba talo aad weydiisatay. Midda 6, u ogolow dadka inay wax badan hadlaan. Qofka bilaadanka markuu wax badan hadlo oo uu daalo, waxaa kuu suurtagalaya adiga inaad fikirkaaga dhiibato si tartiibana qofkaas aad uga dhaadhiciso. Midda 7, qofka u ogolow in fikirkiisa uu dhiibto. Sidoo kale dareensii qofka inuu fikirka asaga uu leeyahay, fikirkiisana uu xor u yahay. Wax walba ha ku fikiro, si walba ha u fikiro. Qof walba fikirkiisa inuu xor yahay waa inaad qofka kula hadlaya oo aad rabtid inaad fikirkaada ka dhaadhicdid waa inaad dareensiisaa. Midda 8, isku day inaad si daacad ah u fahanto qofka kale aragtidiisa iyo dareenkiisa. Lambar 9, isku day qofka aragtidiisa inaad u dabacsanaanto. Dabacsanaanna aad u muujiso, qeyrana aad u muujiso. Lambar 10, marka aad sheegayso amaba aad gudbayso fikradahaaga, isku day inaad adeegsato xigmad, tusaalooyin, talooyin, waxyaabo noocaas ah. Sidaas darteed waxaa laga yaabaa qofka aad rabto inaad fikirka ka dhaadhiciso inuu fikirkaaga horay ka qaato. Lambar 11, mar walba aragtidaada ku saley waaqaca jira. Waxa maanta jira ku saley. Yacni hadba meel ha ka hadlin, laakiinse diiradda saar waxa laga hadlayo, waaqica jirana ka hadal. Lambar 12, lambarka ugu dambeeya cutubkan waa inaad iska ilaalisaa inaad la tartantid qofkan. Xifaaltanka iyo tartanka iska ilaali. Haddaad qof mar rabto inaad fikirkaaga ka dhaadhiciso, waxba xifaaltan meesha ha keenin, wixii xifaaltana iska ilaali. Cutubka ugu dambeeya ee buugga How to Win Friends and Influence People wuxuuna farayaa sida aan hogaamiye u noqon karno annagoon qofna dhibaataynin, annagoon rabshad kicin, annagoon wax problema aan samayn, sida aan hogaamiye qurux badan aan u noqon karno. Waa ogahay dadka intooda badan way jecel yihiin inay hogaamiye wada noqdaan. Marka bal ila fiiri 9kan qodob ee qofka raba inuu hogaamiye wanaagsan noqdo asagoon wax rabshada kicin ay ku habboon tahay in uu sameeyo. Lambar 1, markaad rabto inaad wax ogaato, wax qalad jira inaad baarto markaad rabto, qofka aad tuhmayso ammaan iyo qadarin kala duldhaca. Horta ammaan, waxaasaad ku wanaagsan tahay, waxaasaad ku fiican tahay, kana tahay. Waxaa laga yaabaa qofkaasi sirtii iyo waxaad raadinaysay inaad ka dhex hesho. So hogaamiye dadka ha ku qeyline, dadka aad tuhmayso aad rabto inaad wax ka ogaatid si tartiib ah ula hadal. Midda 2, dadka tus qaladkooda si dadban.
yacni markaad rabto inaad dadka qaladkooda aad fahansiisid adoon si daaragtiya si toosa adoon u dhihin waad qaldan tahay, yacni waxaa jiro si dadban inaad u fahansiin karto. Tusaale, qofaa ma aragtay wax sameeyey, haddaad tirahdid ka waran haddaad waxaan aadan samayn oo aad sidaas samaysid, qofku wuxuu dareemaa in waxaana ay qaldan yihiin uu sameynayo. So marka qofna ha dhihin waxaan sameey iyo waxaan ha samayn, laakiin inaad tirahdid adoo raaliya waxaan saan ma u samayn kartaa adoon sidaan u samayn. Midda saddexaad ayaa waxay tahay dadka inta aadan eedayn ka hor adigu bal is eedeey. Tusaale, qof aa qalad ku jiro, qof ka mid ah dadka shaqaalayaashaada ka mid aha wax qalada samaynaya, markaas qofka horey ha ka eedeen, laakiin waxaa dhahaysaa hadda ka hor aniga qalad noocaanahan sameeyey, waxaasaan sameeyey, kanaan ka dhacay, waxyaabaha saas iiga qaldamay. Wuu fahmaa qofkaas isagu inuu qaladkii isla qaladkii ku jiro. Kadib qofkaas waxaa laga yaabaa hadalladaas iyo tusaalooyinkaas aad siisay inuu iskaga dhaafo. So marka qofna si toos ah ha u eedayn, laakiin marka hore waa inaad adigu is eedaysaa intaadan dadka eedayn. Midda afraad, qofka su'aal weydii intaad amar siin lahayd. Qofka intaad dhihi lahayd waxaan qabo inaad su'aal weydiisaa ka qurxoon oo aad tiraahdid haddaa waxaad samaysid ka waran iyo haddaan sidaan yeelna ka waran, inaad tiraahdo qofka su'aal is weydiisid halkaad amar ka sii lahayd. Midda shanaad, qofka u oggolow inuu weji badbaadsado, yacni qofka bini'aadanka markuu qalad sameeyo wuxuu dhahayaa qaladkayga waxaasaa sababay iyo kaasaa sababay, aniga nasiib xumadayda ma ahayn. So u oggolow qofka inuu waxyaabahaas oo dhan uu isku difaaco. Ha fiirin yacni qofka hana u muujin sida adiga aa u fikirayso, laakiin tixgeli qofka sida uu asagu isku maleeyo, sida asagu uu ka aaminsan yahay nafsadiisa. Midda lixaad, ku ammaan dadka horumarka ay gaaraan, horumarka ay sameeyaan haba yaraate haba weynaato. Qofku wax intaas la eg oo wanaagsan oo horumar ah hadduu sameeyo, ku ammaan. Waa wax wanaagsan aad samayso, ku ammaan. Hadduu wax badan sameeyana kaba sii daran. Lambar 7, qofka si sumcad wanaagsan ee uu ku noolaado. Qofku hadduu maanta qaldamo, isla qaladka maanta uu gala ha u xisaabin, laakiin waxaad u xisaabisaa waxyaabihii wanaagsanaa ee uu horay u sameeyey. Taasi waxay samaynaysaa qofkaasi inuu sumcad leeyahay oo qaladka maanta uu galay aysan nolosha ka burburi karin. Wixii hore uu sameeyana ay wax wanaagsan ahaayeen, wuxuuna ku dhiiri karaa inuu mar kale uu wax wanaagsan sameeyo qofkaasi. Haddii qalad laga cafiyo oo maanta sameeye amaba aan loo xisaabin. Midda 8aad, dadka dhiirigeli una muuji qaladaadka ay galayaan inay yihiin wax la sixi karo. Qalad walba waa la sixi karaa. U muuji dadka aad hogaamiyaha u tahay inaad qaladka ay sameeyaan la sixi karo oo aadna dhiirigelisid inay sii saxaan horena u socdaan, qalad maanta ay sameeyaanna aysan ku hakan. Midda 9aad ee ugu dambeeya waa inaad qofka jeclaysiidaa shaqada uu qabanayo, adoo u muujinaya inaad ka fikiraysid, adoo diiradda mar walba saaraya qofkan faa'iidada uu shaqada uu ka helayo, adoo ammaanaya, adoo u naxariisanaya qofkan, adoo isweydiinaya qofkan wuxuu rabo iyo wuxa uusan rabin, adoo danayn u muujinaya. Isku day inaad qofka jeclaysiisid shaqada uu qabanayo. Intaasina waa waxa aan ka soo baranay buugga How to Win Friends and Influence People. Waanan kaaga mahadcelinayaa dhageysiga iyo daawashada muuqaalkan. Haddaad kanaalka ku cusub tahay, mar kale subscribe saar. Haddaad muuqaalkan ka heshana sidoo kale like saar, asxaabtaadana la sii share gareey. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.